بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما. هل كان واحرمت الله تلنت ضدك يهرمرين تشقدت دكتوري سفين ولا شيء إن الله لسانه ودكتوري سفين ولا ليال ما أنت برنامج كأن ربوا إن إيدين سوق بيو وبرنامج كوسابسن عملة إسبدل كعملة أما أبارها ولا ليال وح عرقنا ما أنت الصومالية wax badan oo dhibaato ka jirto xagga abaaraha labada taas oo ay sabab u ahayd u tahay nur la'aanta ama maarta roob la'aanta xag Ilaahay ka timid iyo dadka oo aan lahayn wax fikrada oo wax ay ku dhigtaan ama wax ay maartay ku dhigtaan oo meel ay ugu baxsadaan ay sii dhigtaan wax dhigtaan labo dadka oo lahayn maartay dadka oo maartay leh dadka oo lahayn maartay heshiis wanaagsan oo maartay dadku haday leeyihiin dad wanaagsan oo heshiis ka dhaxeeyo meel wadanka dagaal iyo midna oo ka dhacana wadan nabadeed yahay dadku waxbay dhigan karaan waxbay ku fakari karaan abaaraha waa ka sii tabaabashaysan karaan laakiin dadku markii ay sidoodaba barwaaqana barwaaqadu u daado ay markaas barwaaqadaas dulmi iyo dhibaato intay ka qaadan isku dilaan oo ceelashii ku dagaalaan oo roobkii iyo barwaaqadii iyo beerihii iyo wax allaale wixii meesha yaalay iyo dhulkii daaqsinkii khayrkii ay ku dagaalamaan oo ay isku baabiyaan oo dhiig lagu sameeyo meeshii waa deecale Ilaahay baa ka dhalanaysa wax ay dhigan karaan iyo wax ay ka faa'iideysan karaanna ma leh midda kale dadku markii ay beero tabcadaan beeruhu nabad bay u baahan yihiin beero tabcadaan oo beeraha inta la tabco haddii Ilaahay ku ran yahay wax la xabaasho oo wax la dhigtana sidaas laftigeeda waxa waaye dadku waxbay dhigan karaan marka wax la tabcayo ma jiraan dhulkii nurkii baa xumaaday roobkii baa maartay imaan waayay aafa awgeed iyo dhibaato awgeed halkaasna waxaaba xoolihiina xataa way ku dhamaadeen oo xoolihi xataa eber bay ku noqdeen waxa marka meesha ka runtii jira dadka abaaruhu isku si uma qabtaan ama isku si uma baabaan waxaan ognahay dad dhaqankooda xoolo badan Ilaahay siiyay oo xoolo badan lahaa oo maartay wadan iska deganaa oo aan reer miyi fog ahaa oo aan dalka aan soo gelin oo tuulooyinka aan imaan sida badanba xoolo Ilaahay siiyay dadkaas marka xoolahaas markay xoolihii baaba'aan caradii abaar ka dhacdo waxa suurtagal ah inay ayaguna meesha ku baaba'aan oo aysan soo bixin oo hore ka soo cararin marka oo arkaysa waayeeladii iska joogan meeshii xoolihii intii hartay labadii neef har saddexdii maalin kasta ay kumaanku ku kor baqtinayso ayagina meeshii ku baaba'een oo meeshii ku baqtinayso intaas waxay diidayaan haddaad meel gashid ama gacanta taagataa ama dad barida intaasay diidayaan dadna markii dhibaato yar gaarto waaba iska soo yaacayaan magaalada iska soo galayaan oo waxay rabaan iska sameynayaan marka anagoo ka baranay wax badan dadka magaalooyinkii meelihii ay joogeen oo roobka iyo khayrka iyo beeraha ay ku lahaayeen in inta loogu tago markii dhibaato gasho la iska soo barakacaan ama maartay ay magaalo soo galaan magaalada meel yar oo dhow maartay wax lagu siiyo oo dad maartay wax ka sii sameeyaan oo hawlo kale laga sii qabsado meeshii dadkii lagu baabi'iyo xataa beerihii inay aadaan keeni waayaan oo gabdhihii iyo hooyooyinkii iyo habrihii iyo iska bartaan inay maartay gacanta iska taagtaan oo iska tuugsadaan oo ayagoo ilmihii sidee dariiqyada aad moodid inta ilmihii lagu fariisiyo la iskaga saxareynayo oo inuu yar maartay jirkiisii meesha iskaga muuqdo dadkii waxa aan aad maraysid maartay wadan maartay ayaga dhan isku furmay oo nololba aan lahaynba oo Muqdisho ay ugu weyn tahay marka intaas oo dhan waan soo aragnay waxbaan ka baranay waxaan dhihi lahaa marka wadamada gobolada ay dadkooda xishoonayaan oo abaaraha iyo gaajada u baaba'ayaan oo wali tuulooyinkii ay ku harsan yihiin oo labada neef saddex neef u sii harsan tahay hal loogu tago meeshooda waxa lagu siiyo xoolahana cuntaha loo siiyo ayagana meeshii hal lagu waxeeyo Ilaahay waa qafuur raxiim roob waa iska imaanaya nolol waa iska imaan doontaa laakiin dadka meesha hal lagu caawiyo meeshooda wax badan baan ka baranay dadkii la soo jafay oo magaalo la soo dhoobay oo wax ku qabsan waayay oo dhaqan xumooyin iyo wax ka badan oo kale lagula kacay wax badan baan ka baranay marka dadka waxaan dhihi lahaa
si aan dhaqanka iyo sharafta loo lumin dadka iyo sumcadooda iyo tuugsi aan loo barin ama maaragtay dadka aysan maaragtay qalbigooda u xumaan sababtoo qofku maanta hadduu waxa waaye qof bini aadan gacanta u taaganaya waa qalbigooda niyad iyo moral aan iyo waxa ka imaanaysa iyo dhaqan xumo ka imaanaysa marka dadka meeshooda inta loogu geeyo wixii lagu siin kara ha lagu siiyo ha lagu celcelsho wixii adduunka looga qaadi kara iyo wixii isku gurban kara iyo wixii wax u tuuri karaba dadka meeshooda ha loogu gurmado yaa la soo jafin yaa la soo qaadin ayagana waxaan leeyahay war dadka dhibaatadan reer miyiga ahayo markii ilaahay khayr badan ku siiyo oo ilaahay roob ku siiyo oo beeraha iyo adduunka kuu baxo iska daaya dagaalada iyo masiibada aad galaysaan iyo dhiigga aad daadinaysaan ilaahay u toobad keena ilaahay u noqda dadka haysbaabi'inina haysdilinina wax dhigta nabadda u baaqa nabadda ka shaqeeya weliba waxaan leeyahay odayaasha dadkaas reer miyiga odayaasha u ah oo iska tuulo fadhiga oo inta dadka tuulada oo xaqdarrada cuna oo balaayada ah odayaasha oo meelaha iska gaalowsada iskaba noqdayba dadkiina maaragtay halkaas ku baaba'ayaan haddana ka faa'iideystaba laba qabiilo isdishay dad isdila ka faa'iideysta war odayaasha inta noqotaan oo aqligiina shaqeeyo maskaxdiina shaqeyso ilaahay ka cabsataan dadka reer miyiga waxa tabcadeen wax u tabca nabad u tabca dadka reer miyiga nabad iyo khayr u tabca dadkaas reer miyiga inay heshiiyaan inay walaaloobaan inay maaragtay darisoobaan inay haddii alkuurayo xoolaha isisiiyaan inay isku nabad iyo noloshaas u tabca ka daaya dadka maaragtay maalin kasta diyada iyo balaayada iyo xoolaha iyo isdilka iyo isgaraaca laga daayo nurka wuxuu u tagayaa oo ilaahay caradiisa ay u dhacaysaa dadkii ilaahay inta barwaaqo siiyay oo nolol siiyay haddana dhiigga daadinhaya marka dib ha la iskugu noqdo nabadeynta ha lagu baaqo dadka ilaahay wax siiyana dadkaas meeshooda ha ugu tageen oo wax ku siiyeen oo ha ku celiyeen oo maaragtay ha ugu gargaareen intaysan ku baqbaqtin meesha waan ogahay gobollo badan soo qof dadkooda aysan dhaqankaasba aqoonba inay intay soo cararaan yimaadaan meesha inay ku baqtiyaan maahan marka ha laga gaaro dadkaas xoolaha haddii dhaafaan dadka dhaafin dadku meesha ay ku baabi'in intaas kale waxaan ku darhayaa cabsiga dadka abaaraha markay dhacaan waxaa looga hortagi jiray la bari in ilaahay la baryo culummada maartay looxda madaxa saarto ardayda yararka haddii ilaahay kuu reeyahay gabdhuhu ay dhowrtaystaan gabdhuhu gacmaha kor u taagaan ilaahay ay baryaan waxyaalo badan oo ilaahay raalli ka yahay oo quraan oo diin ah looga hortagi jiray hadda waxaa dhacdaba laba qoys oo isku dhowba inay is-salaamino ari iskaga darsaday iyo barin lagu kala maaragtay ari ka daaqayba in lagu heshiisiyo lagu dagaalo oo la isla hadlinba marka inta adinku isku caraysantihiin ilaahayna waa idin caroonhayaa reer miyow iscafiya gacmaha issaara ilaahay ka cabsada ilaahay barya darisnimada isku xushmeeya nimcada ilaahay idinkala siiyey isku xushmeeya waag horeeto qof cayr maba jirinba reer miyiga maba jirinba ninkii xoolo yar xoolaha la siin jiray egar leeyahay la siin jiray geela loo kaxan jiray ariga loo kaxan jiray markuu xoolihiisa u dhalana xoolahaas waxbay kala hari jireen neefkii baa laga soo ceshan jiray markaas oo ay iska soo keeni jiray markuu caruurtiisa ilmihiisa ugu noolaadeen maanta ma jirto waa la isku cilo waa la isku cil qabaa waa la isku dagaal qabaa balaayi qabiil ima taqaanid iyo beero lagu dagaalamayo ceelo lagu dagaalamayo nur lagu dagaalamayo deegaan lagu dagaalamayo daaq lagu dagaalamayo marka ilaahay ha noo noqdo Soomaali ilaahay ha u noqoto wali waxaan la hadlayaa Soomaaliga reer miyiga ayaan la hadlayaa ilaahay u noqda ilaahay barya sadaqada bixiya khayrka bixiya sidii waaga hore dhaqanka iyo sharaftii ha loo noqdo waxbaha ku falinina tuugsiga maaragtay laydin keenayo dalalka sheey inta kaga imaanayo balaayadaas oo dhan iyo isku dirka laydin dirayo iyo xoolaha xataa markii la soo aadayo xoolaha waxa suurtagal ah in loo keeno sun xoolaha lagu dhabar jarayo eber looga dhigayo leegeela xoolaha baa lagu daaweynayaa xoolaha baa lagu qurxinayaa xoolaha lagu cayilinayaa waxa suurtagal ah in balaayo iyo maartay wax kale meesha ay ka dhashaan oo waxyaalo maartay xataa bulaadankii u keeni kara difeeta inay arigi iyo geeli iyo wixii la siiyo xataa u keenay karaan iyo hilibkiisii marka reer miyiga waxa leeyahay wax badan ha digtoonaadeen waxyaalaha la idin keenayo daawaadka wax khayr badan ma ahan wax fiican ma ahan
waxa xoolihii baabi'inaya adinkana mustaqbalkiina iyo noloshiina u xun waaye oo idin dabar jarhaya oo cudurro badan idin keenaya waaye marka wax badan dib ha u noqdeen Soomaaliya dib ha iskugu noqoto ilaahay ha laga cabsado baryahana ilaahay ha la badiyo dadka soo qaxay oo gobolada intay ka soo qaxeen tuulooyinka iyo magaalooyinka la keenana dadkaasna ha loo cideeyo si meeshoodii loogu celin lahaa ayagoo sharfan haddii kale meesha way ku baaba'ahayaan dhaqamo badan oo aan maartay aysan lahayn bay kala qaadanayaan dad badan baa Yurub iyo Ameerika konton dawladood baa maartay Soomaaliya ay u kala qaxday dadkaas u imaanaya meeshaas ay dhaqan xumo iyo wax badan kala kulmayaan nin walba waa soo cararaya wuxuu leeyahay ana maanta $100 reer hebel siinaya jaarid hebla waxaas dhiibaysa marka waxyaalo badan baa meeshaas ku dhimi doona dhaqan wanaagsan baa meeshaas ku dhimi doona mar raba hadalka inaan intaas sii badiyo waxaan leeyahay Soomaaliya guul ilaahay idankiis khayr iyo liibaan Allah siiyo cashirkeegan intii soo gaaro waxaan leeyahay walaalayaal hala sii faafiyo si maaragtay aan u kala faa'iideysano aniguna maaragtay dadkaas waan u faa'iideynayaa si maaragtay nolosha ay maaragtay u noqoto mid la isku wacyi geliyo ama la iskaga warqabo adinkana waxaan leeyahay sii faafiyo arintaas ilaahay idankiis aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh